وهي قفكم مركو قبرك التقو ما هنقول كليا إنه ما أنت جيري قف حبالي هذا حتى ميد عديد waxaa isku daydaa inta meydka la xabaalayo oo dadku iska daba wareegayaan oo dadku iska sheekaysanayaan adduunyadii ay ka sheekaysanayaan meydkiina hor yaallo taa gooni u baxdid kaliga adoo ah oo qubuurta aad booqatid oo fiirisi qabrigan hebel hebel halkaan la dhigay intaas oo sano yaala magaciisii la iloobay daarihiisii la dhaxlay ilmihiisii ay kala shaqo tageen meeshuu mari jiray iyo meeshuu ka shaacabi jiray iyo meeshuu fariisan jiray kulli laga iloobay maantana halkaa yaala adiga kaligaa waxaa isku daydaa inaad xasuusatid bal halkaas adiguna inaad ku dambaynaysid ku cibro qaado qofka mu'minka ah waxaa habboon inuu diyaargarow ku jiro arrimo waaweyn baa ka dambeeya waxaa ka dambeeya mowdkii iyo dhimashadii iyo sakaraatulmowt waxaa ka dambeeya qabrigii iyo mugdigiisii waxaa ka dambeeya soo bixinta la soo bixinahayo waxaa ka dambeeya siraadkii uu marahayo xisaabtii ilaahay u taalla ميزانكي إما إلى الجنة وإما إلى النار أما جنة وكدن بي أما النار وكدن بي أي كسرعنا هيا إلهي سبحانه وتعالى وحلي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد مركبون كقيامها الله أفوفه ونفكست أي صبح وحا إيمانها هيا نفكست وإيمانها يا الله الصعدة سائق وشهيد ملك حين يؤوضه إيا مد مرخاتية أيا الله الصعدة مد كان مرخاتية أهل العلم بدن وحي كفصرين وعمل كيسيبا الله الصعدة والله وضاه ملائكتي با وضعوا كحين يسا عمل كيسي أو قرنا والله وضاه ساسا موقف في قيامها القسو أوغية وهذا أرك تقفك مركا حبسي انتلا ديغو حلقة قرقرو محكمة الله صارعيو أساقا يا ملف كيبا الله اسكو كحين يا الله اسكو وديا wixii laga qoray wuxuu ahaa iyo asagii baa la keenaya maalinta iyada ah wuxuu imaanayaa qofku asaga oo la wado marxaatigiina uu la socdo ku marxaati furahayo amalkiisi ah ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala la hor keenaya waa aqrin aad iyo aad u naxdin badan ولذلك بقى النبي يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هدان أقال لهيدين وحا أن أقهي إن يرأياد قسل لهيدين وحبضن وابوي لهيدين وما تلذذتم بالنساء على الفرشات هوين كان فراشيدا كل ما أي نصيحتين ولا خرجتم إلى السعودات بنانك أصو ياعي لهيدين أصو بحي لهيدين تجأرون إلى الله إذنكو إلهي على هيا وإلهي أقع مهور سنة هيا وإسديبة هيا وقيل الدامنة هيا أياد بنانك أصو بحي لهيدين هداد أقال لهيدين waxa aan ogahay waayo nabiga waa la dheelmiyay waana la tusay jannada iyo naarta iyo ummadaha la cadaabayo oo kala duwan ayaa nabiga la tusay calayhi salaatu wasalaam ahwaal waaweyn qofka muslimka ah inuu ku xisaabtamo inay ka horeyso ayaa muhiim ah waxyaalaha kuugu kaalmaynaya ilaahay inaa xasuusatid oo aakhira aad xasuusatid mar walba waxa kamid ah kathratu dhikrillah ilaahay xuskiisa inaa badisid xuska ilaahay وقرآن كريم كأه وأذكارته وتصبيحه وتهليشه وتحميده إن المرول بذكر إلهي أساء قد جنت وحصنته ولهذا ابن القيم وحي عليه رحمة الله على قدر غفلة العبد عن ذكر الله يكون بعده عن الله انت قفك ذكر إلهي وكفقي وموقي أي إلهي كفقي أفرس انت إلهي حسكيسا أدموكتهي أي إلهي كفكت معناه هذا كلما أبديسد حسك إلهي يذكرك إلهي أبديسد إلهي وأسي دوانيسا إلهينا وكوش علاني اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين